marka hore ilaahay baa mahad leh marlabaadka ilaahay waxaan weydiisanaynaa bisha barakaysan ee Ramadaan inuu ilaahay fadligeeda iyo dambi dhaafkeeda bayna siiyo waxa kamid caawo kale waxa aan ku jirnaa hawl maalmeedkii dekada caadiga ahaa caawo waxaan dhoofinaynaa geeligu faraha badnaa insha Allah ee dekada ka baxa sida tiradiisaba hore loo sheegay taasoo runtii aanu fulinayno siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda xanaanada xoolaha annaguna aanu qabanayno service-kii caadiga ahaa ee dekada oo aan mar walba diyaar u nahay 24 saacadoodba inaanu hawl maalmeedkii caadiga ahaa gudanno awoodna aanu leenahay xoolaha ugu badan inaanu ka dhoofin karno dekada Berbera mankaaniyaadkeeda iyo qalabkeeda inaanu haysano taasina waxa ku tusaa caawa in geela oo ah xoolaha ugu adag ee la saaro maraakiibta inaanu sida ugu dhaqsaha badan u saarayna alxamdulillah rabbil caalamiin tirada geelna waxa weeye 3321 alxamdulillah rabbil caalamiin dhammaan ciidanka hawlgalana waan u mahad celinayaa shaqaalaha ka hawlgala dekadana waan u mahad celinayaa shaqaduna waa sidee aad ku ogeedeen 24 saacadood cid kasto wax ka dhoofinsana ama ka soo dejinaysana shaqada waxaan ugu fulinaynaa sida ugu dhibta yar ee ugu fudud ee ugu wanaagsan insha Allah dhowr iyo 20 sano aan dekada joogay intaan garanayo waa geeri ugu badnaa ee ka dhoofa dekada Berbera oo u dhoofaya Masar cabsi waxaanu ka qabnay markii hore in ay yaraan doonaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka laakiin ilaahay mahadii way sii kordheen iminka caawadan aynu joogno kan waynaga rarayna iminka waxa soo galay container weyn waa beriga aroorta afarta waxa soo galaya container weyn oo labaad tobanka subaxnimo aroorta waxa soo galaya sibir weyn oo isaguna 40 kun oo tan sida alxamdulillah rabbil caalamiin xoolii ugu horeeyna waa kuwa bilaabmay sidoo kalena waxa iyagu hadalka iska daba maray xoghaye Cabdikirin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Axmed Cismaan oo dhammaantoodba maareeyaha ku bogaadiyay dardargelinta hawlaha shaqo ee Marsada waxaan kaloo mahadnaqaynaa maareeyaha dekadaha Soomaaliland oo runtii ah nin firfircoon dekadana wax badan ku soo kordhiyay runtii gobolkana guud ahaan maxay tahay qaybtiisa ka qaatay si fiican ba shaqadu u socotaa Berberana markasta waxa weeye waxa qurayna lagu ma jirta waxa weeye isku xidhnaanta dekada saacada aynu taaganahay oo xilli dambe runtii waa halbowlaheennii waxa runtii dhaqaalaha ay dalkeena ka soo galiyay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa maareeyaha aad ayaan ugu hambalyeynaya runtii sida uu heeganka ugu yahay shaqadan ballaaran ee halkan ka socota haddaanan maarayn iyo maamul hufan loo helin shaqadu sideeda uma socoto waxaan ku faraxsannahay sida habsami